بسم الله كل بواحد الرجين يوم أقويها الصومالية دينا نغطان أقويها كنا رنتي وأقويها يهي مركو ربي جينا يقانو آخره وحكوبة بادا ينا يقانو الدون كان ويسبدل كالسبين كريو وحموه مين يهريصه أن قفوا دينكي سينو برضو حلقة بينا تلاهدان أنا أقول حنوني مينا مواد كالو أما آرتا أما ناجرال ساينسيس أما وحي لما إذا أنا نوديك أنه يس أنا نوديك تاوية لكن وحكسي مهم سن نوينو شهادة ستو يصدق قلدانتي أما نوينو شهادة ستو صلاة وصحي لا أضحي أما نوينو شهادة ستو توحيدkiisu galab uu yahay doqonnimo ka weyna ma jirto maxaa wax u barataan yaa ka jawaabaya maxaa jaamacadda u joogtaa ya si kale aan idin jawaabo si kale aan idin weydiiyo qofka cimrigiisu intaanaynu naqaano in caloosha hooyadii uu ku jiraa uu ka yimaada bannaanku uu xoogaa joogaa 50 60 70 sannadood waa dhintaa xabaal buu galaa mudduu ku jiraa waa la soo saarayaa qiyaamuu imanayaa janno iyo naar baa ka dambaysa saxanka maaha life spankaagu waa intaa life spankaaga intaa leeg qayb qorshaheeda adigu shaqo kuma lihid qaybta hore shaqo kuma lihid wixii markaad soo qaagaadho ka dambeeya ayaad tijaabinaysaa inaad qorshayso ma waxbarashadiina waxay ku qorshaysantahay markaa life spanka haysataan inta yare ka hadhay 20 soddon baa hadda joogtaan ilaa 30 jirka waxbaa la baranayaa first 10 yearska experience baa la raadinayaa 40 jir marka la gaadhaa baa shaqada rasmiga la gelayaa 20 sano meelahaas la shaqeynaya kadibna pension baa la gelayaa soo inta ma marka 30 sanadood oo cimrigaaga kamida waxaad u bixinaysaa miya ama 40 sanadood oo cimrigaaga kamida 20 years ka dambe saad u noolaan lahayd nolosha inta kale maxaa ku qorshaa marka soo inta kale waa cala allah insha Allah waxa la ka dhigaa uma noqon doontaa odaydii Soomaaliyeed baa waxay oran jireen inaan ka farhungurida lagu daray bay oran jireen waxa wadaan oo dhawaa farunguri faculties-ka maxaa u kala doorataan مثلا inaad faculty-ka dooranayso mostly inta ugu badan ardaydu faculty-ka waxay ku doortaan market-ka suuqa dhaqaalaha lagu doortaa hadduu la yidhaahdo computer science-ka markiiba shaqaa la helaya dhammaantii computer science ba gelaysaan soo maaha haddii maxaa dadku medicine-ka u jeceliyey medicine-ka inta badan waxaa loo jeceliyay waxa weeyaan waa shaqada keliya ee meel kastoo dunida la tago mostly shaqo lagu helo waayo meel kasta bini aadam bukaa taagan saxanka maaha meel kastoo dunida tagto qof bini aadam oo bukaa taagan sababta loo doortaa inta badan waxa weeyaan hungurigeeda musallama waxay u badan tahay inaad shaqo waayin waxay u badan tahay more than 80% or 90% markaad ka soo baxday inaad shaqo helaysaa bay u badan tahay that's why dadku uu isugu cidhiidhiya qolada faculty-ka haysataan ay u qaali gareeyaan ama ay cidhiidhi uga dhigaan faculties-ka kale maadaama furasku 50-50 yihiin waxa laga yaabaa in cid waliba geli karto idan waxaan idin leeyahay aqoonta hunguriga laguma qiimeeyo aqoonta waxa lagu qiimeeyaa anfac dunawiya anfac aakhiraba ka leedahay aqoonta waxa lagu qiimeeyaa bini aadamka maxay ku soo kordhin karaysaa maxay ka bedeli karaysaa maxay tari karaysaa waxa lagu qiimeeyaa dadkaaga maxay kuu qabanaysaa maxay u taraysaa waxa lagu qiimeeyaa aakhiradaada maxay ka taraysaa aakhiradaada maxay ka taraysaa idan waxa haboon waxa adduunyo aakhiraba wax ka tara kow ee isbedel sameeya waa qof mu'mina ilaahayna quraanka wuxuu leeyahay afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika الحق
cidda og wixii alle xaggiisa ka yimi inuu xaq yahay miyuu la mid yahay baa la yidhi kaman huwa acmaa ninka aan ogeyn waxa xagga rabbi ka yimi inuu xaq yahay waxa lagu misaalay alacmaa acmuhu indhuhu iyo dhaguhu waa awalu lwasaa'il bini aadamka waxbarashada suurtageliya qofku hadduu indhaha iyo dhagaa waayo mostly wuxuu ku baxaa maxay dariiqii waxbarashada inuu ka lumo socanka maaha hadaad labada dhagood iyo labada indhood ba la adahay waad ka lumaysaa dariiqii waxbarashada waxaa lagu tilmaamay markaa kaan rabbi garanaynin wixii alla soo dejiyey aan garanaynin wax kastoo kaloo aad garanayso kaman huwa acmaa buu la mid sidii kii indhaha lahaa gaalnimada iyo islaamnimadu waxay ku kala soran yihiin waa khabiir gaaleed oo aqoonta bini aadamka wax ka garanaya laakiin aan aakhira waxba ka ogeyn wax macno uu leeyahay ma jiro dad ogaan lahayd siday u nool yihiin iyo warwarka haysta iyo dhibta haysata iyo qaab nololeedkiisu wuxuu yahay waxaad ka doorbidi lahayd ninka geeljiree muslimka ah ee ilaahay yaqaana ee rabbigii rumaysan idan tacliimtu tana baranaysaan waa tajaaribtii bini aadamka oo la qoray yes aadanuhu wuxuu tajribo soo sameeyey ee dunida intii qoraalku u suurta galay wixii uu ururiyey ee aan lumin ayaa la qoray dabeetana la classify gareeyey dabeetana laga dhigay kuliyaadka aynu joogno waa tajaarib bini aadam waxaa jirta tajaarib bini aadam oo badan oo aan qorayn oo ay aragnimada bini aadamku uu ku helo laakiin waxa asalkii wuxuu yahay tacliinta midi markaa try and error bay ku timaadaa midna waa absolute value midi waa try and error oo waa tajaaribta bini aadamka la ururiyey maanta theory baa caana berritaa la odhanayaa theorygii professor hebel baa dumiyey waxba kama jiraan kan kalaa saxa anything arts ka dhigataan oo dhami waa theories waa theoryga qolada reer galbeedka theoryga qolada midigta qolada bidixda qolada markiska qolada liberalismka qolada kan waa theories waa qaabab afkaareed oo bini aadamku ay u arkeen tajaaribta ay ururiyeen inuu kani sax yahay laakiin mid baa jira theory ahayn isagu waa absolute value oo ah inta aanu bini aadamku garaadka ku keeni karin inta aan garaadku gaadhi karin ayaa rabbi inoogu daaqay siduu nicmooyin badan oo kale inoogu daaqay bini aadamku oxygen ma helayo rabba inoogu daaqay iyadoo free baa qof waliba cabaa socanka maaha oxygen-taas waa free waayo noloshaan jiri karin dabeetana ilaahay baa inoogu daaqay waxa laaliya waxa aanay noloshu jiri karin rabbaa ku daaqa huwa alkariim qur-aankii ugu horreeyey soo degay ilaahay muxuu ku tilmaamayaa iqra bismi rabbika aladii khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakramu aladii callama bilqalam alakram baa ilaahay isku sifeeyey allaha kariimka idiin ku deeqay cilmiganu soo dejiyey idan diintu qur-aanka iyo fasirkiisa xadiidka ahi waa absolute value cilmi ah cilmi aan try and error ku jirin cilmi saxa علمي كيمي من لدن العليم الخبير الله وحول بجنوك وحول بجنتي سوق إنسان كوحو برانا يورد موامحي ومخلوقات كإلهية how it works بينو برانا وحصو مكانه وحجري وشوقي أي نوحينو برانا خبير هبل با وحن صاهلي محو صاهلي وحن ولا شكامي دي سيديو شقيني وين تاسينو برانا واحد هذان all sciences وتقليد الطبيعة ونيجر كالله أبو رشيد وشقينية وحلقوه قادي دبتنا ولا فايدة استوى على الرباسيديسي شمرتين وقال نسيدا يوضوشو حيوان كاين وقال دبتنا ولا قبرتي دن فورسس كهيا أيه وحكم بلا دراسية واحد دولي كراينا نين إنه مركز سبعينه واحد دولي كرا anything that you ready وسيمبل كم ده نولها الدنيا ده كنا نولي qaabku u duulo hadduu helicopter yahay hadduu jet yahay hadduu kan yahay hadduu kan yahay waa xayawaankaa ilaahay dunida ku abuuray qaabkay u dhaqmaan idan aadanaha aqoontiisa oo dhami
wax ka mid ah wixii alla abuuray siduu u shaqeeyo inaynu ogaano markaynu ogaanana kadib nolosha aynu ku taray garayno sabayno ama diintu waa wixii aynan garaadka ku gaadhaynin garaadka caadiga bini aadamka wixii aynan ku gaadhaynin oo deeq rabbiya oo ilaahay inoo soo diray iyadoo la inoo naxariisanayo nebi maxamed waxaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kumana soo dirin baa ilaahay leeyay inaad adduunka naxariistiisa tahay mooyaane waa min raxmat illaahi subxaanahu wa tacaala oo waayo bini aadamku noolaha kale tajaarib baa la gelin karaa laakiin ilaahay bini aadamka wuu karaameeyey laguma talagelin inuu noqdo sida jiirka wax lagu tijaabiyo inaad wax lagu tijaabiyo noqoto almabaadi wa kullu shay in lagu tijaabiyo مثلا shuuciyaa lagu tijaabiyey 70 sanadood markii dadka bini aadamka madax laga garaacaya hadda la yiri ma shaqaynayso wax bini aadamka u cuntama maaha mabaadi'da aadanuhu wadoo dhamay bini aadamka lagu tijaabinayo waa caynka haddii uu ka lumo usuushii rabbi uu soo dejiyey marka idinku tajaaribta bini aadamka baranaysaa iyo si fiican u barta aqoon kayda ka sameeya laakiin asalku yuu lumin tii rabbi kuugu deeqay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyey ee asalka ahayd ee nebi maxamed laynoogu soo dhibay calayhi salaatu wasalaam ee noloshoo dhan hagaysay taasi yay lumin hadday taasi lunto waad waxoogaa bini aadamku isu sheegay aad soo qaadato waxba badan sheegi mayso kaman huwa acmaagaad ku biiraysa wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan kaad ku biiraysaa yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya baad ku biiraysaa wallahu aclamu wa antum laa taclamuun kaad kusii biiraysaa idan haddaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aqoontu inoo soo dejiyey aada wax la-aan ka soo qaado inta badan dhallinyarada meelaha scienceska dhigata iyo kan waxay moodaan wax weyn inay dhiganayaan ninka diinta ama shareecada dhigtaana waa iska waxoogaagii malcaamadda qur-aankiibuu sii wadwadaa weeyaan waxoogaagii qur-aanka ee malcaamadda lagu dhigan jiray ayuu sii wadwadaa isna wuxuu soo arkaa nin wax weyn soo baranaya asalku waa sida kale marka waxaan leenahay asalku waxa weeyaan ina horraysiisaan diintiinna ina barataan oo aydan gacan bidixaynin diintiinna ina barataan dadka badh baa waxay is yidhahdaan dee malaa la iskuma baran karaye markaad horta tan dhammayso ayaad haddii alla yidhahda kalena waad u soo jeesan waxba kama jiraan lama soo jeesto bini aadamku mar uu faadi yahay ma jirto mar waqti aad iska haysato aan wax lagu qabanaynin ma jiro 24 saacadood aad haysataa unbaa qof kastoo bini aadam haystaa inta hawl kugu furanna hawluhunbaa isbedelee waa kugu furaan doonaanu kolba hawsha kugu furan nooceedunbaa ka gedisan hawshii sanadka kale kugu firay laakiin bisigaasunbaad ahaanaysaa saasumay kugu furaanaysaa waxaan idin leeyahay idinkoo kulliyaadkiina jooga oo jaamacadkiina jooga oo scienceskiina baranaya oo artskiina baranaya ayaa diintiinana baranaysaan haddii hankaasi idinku jiro haddii aydan rabin inaad gacan bidixaysaan waliba idinka waxaa laga yaabaa inay isku dhow yihiin qoladii sharciga haysay ama tulaab ha noqdo baranaya ama professor ha noqoto ama macallimiin ha noqoto iyo kulliyaadkiina kale inay isku dhadhow yihiin oo inay kala fogeyn inaad wax kororsan karto qofka bini aadamkeena inuu wax bartaa kaad haysaabay kuu kordhinaysa kaad hayso ayay kuu kordhinaysa ma aha marnaba aqoontu way iskabtaa qofku mar kastoo uu mawsuuc yahay wuxuu akhriyaa mar kastoo ay ballaadhan yihiin waxa uu dhigtaa mar kastoo ay ballaadhan yihiin si fiican buu u koraa anigu waxbarasho haddii la eego waa tumaalnimo waxaan bartay oo dhami waa field yar oo tumaalnimada ka mid ah laakiin nolosha inaan akhriyo ama daraaseeyo ama barto ama cid kastoo waxay dhaantaa waxay sheegaysaa aan dhegaystaa waxay kordhinaysaa kaygana waxbay ku kordhinaysaa tumaalnimada lafteedaan xataa wax ka faa'iidaya marka hayse odhanin takhasuska yare aad wadataa cilmigu ku dhan yahay ee takhasuskaa ka warkeen yees ka warkeen wakhtaad bixinaysa cimrigaaga in ka midaad bixinaysaa iyadoo haddana la yidhaahdo bini'aadamaa gebigiisaba maraykanka qiimeeyana waxay yidhaahdeen dadku jaamacadaha ka soo baxay
80% of the people bay dhahaan waxay barteen waxaan ahayn bay ka shaqeeyaan 80% jaamacadaha dad ka baxa markay hadhow shaqada tagto wixii ay barteen waxaan ahayn bay ka shaqeeyaan laakiin hadda wixii ay barteenna kuma khasaaraan nawcan ma si un bay uga faa'iideen ay waxtar ugu samaysay marka waqtigu waa yariyay saawgeed waan ka baxayaa anu waxaan kelmadaydu ay tahay diintiina ha gacan bidaxaynina waxay soo dhanina idinku wax kala mashquul ku tihiine kan kale ka warkeena oo qurahay soo dhanin diin waxa isku daydaan iyada asala iyada cimriga ugu dheer waxa lagu badbaadayaa iyada aakhiriya adduunba badbaadadu ay ku jirtaa ina iyada waqti nolosha kamid ah siisaan afrilaataka saacadood waqti kamid ah inaad siisid barashadeeda oo adigoo kaagana baranaya kana aad baratid aad kortid anigu weedhaan idin leeyahay waa salaamu calaykum waraxmatullaah